maalmahan waxaa jira oo miduu hadal hayay guddiga laga magacaabay dowladda Muqdisho oo magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi guddiga marka la magacaabayo waxa horta ka horeeya ujeedada loo magacaabay ee hawsha loo diraayo hawsha loo diray guddiga waa laba qodob labada qodob midna Soomaaliland ma xuseeyo mar haddaanay xuseyn Soomaaliland waa ka gaabsanaa wixii gudahooda faragelinayno qodobka koobaad waxa uu diray guddiga inay dhameeyaan tabashooyinka walaalaha Soomaaliland waxay la tahay tabashada cid ka tabanaysa ee uu garanayo walaalaha la jooga waa inta isaga la joogta ee u shaqeysa marka haddii ku haysto ka tabanayaan inta isaga u shaqeysa haddii wax ka tabanayaan waa u taala balse Soomaaliland madaxweyne Maxamed Cabdullaahi intii xilka yimid waxay ka aragtay oo kala kulantay cadaawad aan hore loo arag 28 sano ee ka dib rabixii Soomaaliland iyo Soomaaliya 28 ka inta sano intii madaxweyne ee joogtay cadaawad aan laga arag oo dhinac walba ah ayuu Maxamed Cabdullaahi bilaabay oo uu qaaday oo joogto ah har iyo habeen hadday tahay mid faragelineed mid ciidan mid dhaqaale mid propaganda dhinac walba oo tulaan lahayn waana wax ugu la wada og yahay oo imka idin tirimaayo caalamka oo dhan baa tii shalay ariga ugu dambeysay ay wali ceebtooda ku faanan anaga sii deynay markii caalamku ka garowsan waayay ama dadkii xajka ahaa xoolihii ay ka iibsadeen berbere lacagtooda qadiba ay hor joogsadeen in caalamkii la yaabay ayaa ay ku dacwadeen shir BBC kala ahayd anaga wax soo deynay arrinta hadda si dhaweyd ka warramo ariga banka islaamka dawladaha wax ka iibsado ariga oo ka iibsado waxa ugu weyn Soomaalida inta badanna wuxuu ka dhoofaa berbera dhawaashaha dekada oo ku haboon iyo dekada kala qaar laakiin waa u badan saacada marka dhowr bilood ka hor ayuu banka islaamigu meelaha ariga oo ka iibsanayo dhan ariga ka iibsaday waliba lacagtii horumarinta ay uu siin ariga la iibiyo meel walba marka ariga la raray waxa lahaa banka islaamka ayaa lahaa ganacsatada Soomaaliland heshiis bay ku wada jireen in inta qadibaad ay hayaan xoolaha la raray ay xoolo caafimaad oo ku yahay dadka banki iyo waxay saysteen nimanka bulshada jooga dawladda Sacuudiga banki ay hore u heshiisay heshiiska sameysay waa cadaawada halka gaarsiisan tusaale yar baan ka siinay cadaawada farmaajo ugu kacay haddaad dhageysateen clip YouTube ku jira wiil yar oo dhalinyaro ah oo burca ka shaqeeya buuxo jooga markuu hadlayo wiilkaas wuxuu reer faqir ah ka dhashay kooras baa laga diray markii aan sanad joogay kooras reer lacag kala maatay qaahira jaamacadda ku jiray waxaan application u qortay safaaradda Muqdisho deetana wuxuu yiri waracaynkaas aan ahayd koorsada waa tan la qaybinayo dadka la siinayo qaar aan Soomaali ahayn asaasaan hal igu qoro kooraska marka labadii nin ay joogay way isweydiiyeen ninkii carabka ahaa ee qaybinaya u keenay waa hal si waxa ma Soomaali ma way u diideen muddo u sheegay dheer ana garanay inuu ku noqonayo bariyayo laha war cid walba waa sida Soomaali ku hadalay hal isiyo walo diid u taariikh 13 mar sheekadiisu ka shaqeynay waa ka wax magaca Soomaalida wada bixiya arday mustaqbal Soomaalida baranaya loo diiday shalayna nin isaga u shaqeeya wuxuu ahaa arday badan ma kooras iyo baran aan melgeeya maraha waa qolada wax tabaraysa barida isaga koorsisi marka waxaan leeyahay qodob hore waa ka Soomaaliland cadaawad baa ka dhaxaysa Soomaaliland ninka soo weeraray cadawga wax kama tabatan mara barida way iska celisaa waana iska ka cilnay qodobka labaad wuxuu yiri waa in la hirgeliyo guddiga ay hirgelisay mabaadi'da federaalka tii federaal shaqo ku bari waynaga kala baxay 60 waynu midoweynaga inoo frontiera waynaga dunta 19 wixii aan wada dhisanay midkeen badan gaar u soo taagay adigu federal baa tahay dastuurkaaga haddaad cidii ku dooratay way Soomaaliland waa republic waa jamhuuriyadda Soomaaliland dastuurkeeda leedahay madaxda ay dooratay hawsheeda wata marka hadii dawladaha caalamka ay ku ictiraafeen Soomaaliland inta uu ictiraafana anaga jirtaa adeeg kuma khusayso labada qodob markiisa ay waxa kala deel qaaf ah oo yar aqliga aan galin guddi u magacaabo wuxuu Soomaaliland baa doonay loo wada soo shiino rag Soomaaliland u dhashay uu soo magacaabay oo isaga la jooga
taasi waxa weeye Somaliland ana ila joogta hubaal waxa weeye waa run dadka kula jooga waa dad Somaliland u dhashay laakiin adiga ku yimid ee aan wadi qadadii Somaliland iyo go'aankii Somaliland mana dhici karto mana suurto bas inay Somaliland u hadasho dad farwaajo u shaqeeya Somaliland waxa u hadlay doona dadkeeda haya xilkooda iyo codkeeda ee ummadani dooratay ama u imatay ama ay u dooran doonto inay u hadlaan arrimahaasi mana suurtoobi doonto haddii wada hadal ba yimaado oo cidlo ka heshiiso malaha inta joogto cid ka heshiimaysay dad Somaliland ka mid ah inay ka yimaadaan dhinaca ay Somaliland wax ka doonayaan ay haystaan saddexda qodob taas aan kaga tagay qodob kale ayaan dirayaa xisbiyada mucaaridka saaxiibayaal waqtigii doorashada bisha August 10keeda haddii naga gaadho sharcigu wuxuu dhigayaa in loo gudbiyo guud caawana waxa joognaa 20 July waxaan rabaa 20 waxaan ku murminaa waa laba la kordhiyay la kordhin horta ma waxa muhiim ah laba lagu daro guddiga doorashada mise inuu doorashada loo dhacdo weydiinaya waa in saaxiibaday waxaan leeyahay laba la kordhiyo oo imka sharci la bilaabo macquul maaha sharcigu sidii ay ku galaan maanta labada markay dhamayno baarlamaanka oo horeysa ay kororsan laakiin 20 cisho sharci la furo oo laga doodo maxaa loo kordhiyaa maxaa laga dooday maxaa dhacay oo baarlamaanka loo geeyo oo cod la geeyo taa walaalayaal doorashada way naga dhaxumaanay gaari mayno 20 cisho aynu haray labada xisbi waxaan soo jeedinayaa dalku doorasho u baahan yahay doorashadii labada xubnood ee doonaysaan maalinta doorashada ka baxay ajendeena u horeeya ha noqdo maanta haddaynu hawshaa gala ka bixin